munaasabadan lagu xoojinayay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed isla markaana lagu sagootinayay dabaaldega maalmaha Ciidul Carafa kaasi oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka hay'adda wacyigelinta iyo horumarinta dhaqanka Soomaaliyeed ee Saara oo kaashanaya maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa munaasabada ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay gobolka Banaadir maamulka degmada Kaaraan iyo dadweyne kale aad u fara badan ee ka kala yimid waaxyaha ay ka kooban tahay degmada Kaaraan inta munaasabadu ay goobto ka socotay ayaa fanaaniinta hobolada waabari qaybta fankalorka ay ku soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee laga ciyaaro qaybo kamid ah gobolada dalkeena Soomaaliya agaasimaha hay'adda horumarinta wacyigelinta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Saara Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa ka warbixiyay muhiimadda hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed fanka iyo suugaad wax walba oo jiro meesha ku timaado aniga rabo inaan soo gaabiyo xilli habeen ay tahay waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan degmada Kaaraan iyo shacabkeeda iyo gudoomiyaheeda u mahad celiyo sidoo kale howladu waa bari fanka loorka ciyaarta qurxoon ay soo bandhigeen sidoo kale fanaaniinta da'da yar oo dhalinyarada ah ka macaan waxyaabaha ay soo bandhigeen aadan u mahad celinayaa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Cabdi Fataax Nuur Cali Yaayo ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Kaaraan iyo degmooyinka gobolka Banaadir u soo jeediyay inay ka shaqeeyaan horumarka dalka ayna xoojiyaan hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed موسى عثمان أبتو تلفزيون كقرن كسوماليات مقدشو.